bismillaahi raxmaani raxiim kulan wanaagsan khiyaarta nala socota meel kasta oo aad joogtaan waa 18 bisha Sebtembar sanadka 2025 kusoo dhawaada muuqaal kale oo ka mid ah taxanayaasha Barrow Show iyo caawa gobolka bariga dhexe waxaad moodaa siyaasadda in la isbaleegayo oo waliba la isku dhigayo dabinno kala duwan madaxweynaha dalka Masar General Abdel Fattah al-Sisi ayaa markan doonaya albaaba diblomaasiyadeed in uu ka xiro Israa'iil xilli Netanyahu uu balaariyo weerarka uu ku qaaday magaalada Gaza isla markaana lagu soo warramayo magaalada go'doonsan inay hadda ka jiraan xaalado aad u adag dagaalka ay dawladda Masar ku dhaqaaqday ee dhinaca diblomaasiyadda ayaa lagu tilmaamayaa arrin kale oo xanuunjinaysa nidaamkaasi iyadoo qaybo ka mid ah wadamada Yurub uu bilaabay madaxweyne Sisi markan inuu kulamo la yeesho si loo qaado tillaabooyin degdeg ah oo cunaqabatayn oo lagu qaadi karo Israa'iil Masar markan ma waxa dhab ka ah dagaalka ee lagu la jiro nidaamka Israa'iil in ay xoojiso base waxay dareemaysaa qatar weyn oo ku soo foole qubarada qaar waxay leeyihiin waxay ka hortagaysaa in dhacdooyin ka dhacday oo kale 9kii bishan gudaha magaalada Dooxa in dawladda Masar ay la kulanto haddaba maanta Spain iyo Qaahira maxay wada sameeyeen warbixin ayaan idinkaga hayaa arrintaas oo aan barnaamijkan ku lafaguri doono inta waxaan raaci doona haddii rabbi saamaxo akhyaarta nala socotay saraakiisha sarsare ee howlgalka Israa'iil ayaa bilaabay inay ku maadeystaan ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyagoo yiri waxa uu dhaqmayaa sidii nin sawir keligii haya oo kaliya u jeeda taasoo mararka qaar lagu tilmaami karo waali hogaamiyihii qolka howlgalka weerarka Gaza ayaa waxa uu leeyahay guusha Netanyahu uu arka oo kaliya waa dhaan dabagaalle oo cid arki karaysa ma jiraan ciidamadii iyo hantidii nidaamkana halkaasi ayay ku madheen mana jiraan ilaa iyo hadda wax guula oo la xaqiijiyay fiicnaan lahayda ayuu yiri in uu si degdeg u qaato in wada hadallada uu ku soo biiro isla markaana wajiga nabadda la isla aado haddaba fariintan maxaa lagu macnayn karaa mase la dhihi karaa Israa'iil waxay dareemaysaa wajigabax kale oo culus oo gudaheeda ka imaanaya barnaamijka ayaan ku lafaguri doonaa inta aan wada joogna akhyaarta inala socotay dhinaca kale maanta magaalada go'doonsan waxaa ka soconaya barakacii ugu xooganaa waxaana nidaamka uu bilaabay waa Israa'iil in ay burburiyaan goobaha isgaarsiinta ah si dardar loo geliyo barakaca isla markaana dadka ay tahli waayaan inay isgaaraan arrintani waxaa looga gol leeyahay in magaaladaasi qayb ka mid ah dadka laga barakaciyo ee hadda nidaamka Israa'iil ay gacanta ku dhigaan wasiirka maaliyadda ee nidaamkaasi Smotrich-na waxa uu leeyahay hadda baa la gaaray sidii aan rabay soo dhawaada khiyaarta nala socota ay wararkii ugu dambeeyay ee barbilowga muranka dagaalka bariga dhexe ayaan barnaamijkan ku dulmari doonaa hadduu rabbi istaago inagoo baalal kala duwan ka istaagi doona General Sisi waayadii ugu dambeysay waxa uu diyaarinaya siyaasad diblomaasiyadeed oo adag oo ka dhana nidaamka Israa'iil taas oo dadka qaar ay ku fasirayaan waa duulaan diblomaasiyadeed oo dawladda Qaahira ay diyaarisay wixii maanta ka dhacay dalka Spain marka la fiiriyana waxa durbaba ay muujinayaan xanuunka soo gaaraya nidaamka dagaalka ku jira Israa'iil qaar ka mid ah warbaahinta Carabtu waxay qorayaan madaxweynaha dalka Masar General Sisi ayaa hoggaanka sare ee dalkaasi Spain maanta ku booqday si degdeg ah loola xoojiyo dagaalka ka socda marinka Gaza in la joojiyo oo Israa'iil laga hortago baaqa caalamigana la awoodeeyo iyo isagoo si cad u diiday qorshe kasta oo lagu barakacinayo baa layiri shacabka ku nool magaaladaasi hogaamiyaasha ayaa ku kulmay magaalada Qaahira intii lagu guda jiray booqashada rasmiga ah ee boqorka Spain uu ku jooga dalka Masar taas oo booqashadiisii ugu horeysay ee dalkaasi uu ku tago isagoo ka socda baa layiri muddo 4 maalmoodana joogi doona war-saxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada Masar ayaa lagu sheegay in kulanka uu ka koobnaa mid gaar ah iyo fadhi ballaaran oo ay ka qayb galeen wafuudda labada dhinac ay isla soo qaateen madaxweyne Sisi ayaa kulanka ku soo dhaweeyay boqorka Spain isagoo xusay in xiriirka istiraatiijiga ah ee labada dal ay gaareen kadib booqashadii bishii Febraayo 2025 uu Sisi ku tagay magaalada Madrid qodobada ugu muhiimka ah ee la soo qaaday kulanka waxaa ka mid ah baaq cad oo ku saabsan joojinta dagaalka degdega ah ee magaalada go'doonsan ka socda
dalbashada in la sii daayo dhammaan maxaabiista iyo lahaystayaasha kala duwan ee labada dhinac, ku adkaynta in la geliyo gargaarka bini-aadanimada magaalada iyadoo aan wax xanibaada la saarin, diidmada kordhinta rabshadaha iyo ballaarinta dagaalka gobolka oo la isla soo qaaday, ku adkaynta diidmada iyo barakacinta shacabka falastiin iyo weliba arrintaasi lagu tilmaamay inay tahay khatar weyn oo dunida aysan aqbali karin, dhaleecayn cad oo ku saabsan faragelinta sharci darrada israa'iil ay ka wada baa layidhi daanta galbeed, sida ballaarinta dhulka ay qabsanayaan gumaystaha iyo qorshaha lagu doonayo in lagu darsado dhulka falastiin. si kastaba haatee labada hogaamiye waxay ka wada hadleen xaaladda caalamiga ah ee kale sida dagaalka Ukraine tan iyo 2022 socda. marka la fiiriyo dagaalka ka soconaya magaalada Gaza ayaa waxaa ku geeriyooday 65,062 qof, halka 697 qofna ay ku dhaawacmeen, 428 qofna ay u dhinteen gaajo iyo nafaqa darro. waxaa ku jira baa layidhi 146 caruura sida laga soo xigtay qaramada midoobe. daanta galbeed iyo qudusta bari ciidamada Israa'iil iyo kooxaha degan ayaa diiday in ay sii barakiciyaan dadka, waxaana leeyahay suuragal maaha in ay tallaabooyinkan sii xoogaystaan. Masar waxa ay muujinaysaa markan tallaabooyin kale oo xoojinaya sida looga hortagi karo dagaalkaasi inuu sii baaho, waxaana tala leeyahay waa farsamo diblomaasiyadeed oo dowladda Masar ay doonaysa markan dalka Spain in ay xoogga ku saarto oo ay kaga hortagayso weerarka nidaamka Israa'iil. saraakiisha sarsare ee ciidamada Israa'iil waxa ay bilaabeen inay ku maadsadaan ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu. qaarkood waxay leeyihiin malaha odaga isagoo soo jeeda ayuu riyoonayaa, mase waa dhaan dabagaalle guusha u muuqato aan la gaari karin. sidaas waxaa maanta ku hadlay taliyihii hore ee qolka howlgalka gaarka ah ee dagaalka ka soconaya magaalada Gaza ee go'doonsan, waxaana uu yidhi lama qaadan karo howshan siday u socoto. Israa'iil Zif oo horey u ahaa taliyaha qaybta gaarka ah ee ciidanka Israa'iil ee ka shaqaynaya nidaamka Benjamin Netanyahu, isla markaana ay maxkamadaha dambiyada dagaalka caalamiga ay ku raad joogto, ayaa yidhi dagaalka iyo guulaha uu ra'iisul wasaaruhu raadinaya lama gaari karo. Zivi waxa uu sheegay telefishinka Al Jazeera in jihada uu Netanyahu ka wado dagaalka magaalada go'doonsan ay dhibaatooyin badan sababayso, isagoo xusay in howlgalka dhulka ee socda uu khatar weyn gelinayo nolosha maxaabiista iyo askarta iyo weliba dadka kale ee rayidka ah. Israa'iil ayaa salaasadii bilowday weerar kale oo dhulka ah oo muddo dheer la filayay inay ku gasho magaalada waqooyiga qaybta go'doonsan, iyadoo ku dadaalaysa in dadka rayidka laga saaro magaaladaasi. nidaamka Israa'iil ayaa wada baa layidhi dhul kale oo dheeraada in uu furto, kaasi oo ujeedadiisu tahay dadka inay isugu geeyaan dhinaca koonfurta. si kastaba haatee 100,000 oo qof ayaa weli ku harsan magaaladaasi, kuwaasi oo ka cabanaya khataraha jidka, xaaladaha nololeed ee adag ee koonfurta, cunto yarida baahsan iyo weliba cabsi laga qabo baa layidhi in si joogto ah barakaca uu sii socdo. tan iyo 7 bishii Oktoobar 2023 Israa'iil waxa ay si buuxda u wadaa weerarada dagaalka halkaasi ka soconaya, iyadoo haatan la leeyahay xaaladii bini'aadanimo ee ugu darnayd ayaa goobtaasi ka taagan. dhinaca kale Israa'iil waxa ay bilowday in ay beegsato goobaha isgaarsiinta si loo dardargeliyo barakacinta dadka loogana saaro guryahooda. khubarada arrimaha gargaarka ka faalloota iyo weliba xaaladan dagaalka waxay leeyihiin tani waa masiibo kale haddii aan si degdega wax looga qaban. dagaalka ka soconaya marinka Gaza ayaa galay weji cusub oo aad u dhibaato badan kadib markii ciidamada Israa'iiliyiinta ay maanta si ballaaran u kordhiyeen duqeymaha dhanka cirka ah iyo duulaanka dhulka, iyagoo bartilmaameedsaday gudaha magaalada go'doonsan iyo hareeraheeda. weerarada oo ay ku wehelinayaan baa layidhi gawaari gaashaaman oo ciidamada ay wataan ayaa ujeeddadu tahay in 2 milyan oo qof guryahooda laga saaro. ciidamada Israa'iil ayaa si ula kaca u bartilmaameedsaday shabakadaha isgaarsiinta, waana shirkadaha isgaarsiinta ee Falastiiniyiintu ay hadda u muuqataa in ay la burburinayo. hoggaanka siyaasadda iyo militariga Israa'iil ayaa isku dayaya in duulaankan loo suuqgeeyo si tallaabo loo sii wado soo furista maxaabiista iyo weliba daciifinta awoodaha kooxaha wax iska caabinta.
laakiin dhinacyada kala duwan ee wax iska caabinta ayaa weli ku guulaysanaya dagaalkan in ay ku sii jiraan. dowladaha qaar ayaa si weyn u dhaleecaynaya tillaabadan dhulka ah oo ciidamada Israa'iil ay ku dhaqaaqeen. akhyaartana la socota tabinta qaybtan intaas ayaan ku gabagabeynaya. si aad macluumaad iyo warar kale aad u heshaan ku soo biir YouTube